ciidankan maanta halkan tababarka aynu ugu xidhayno kooxda goodir oo maalin kastoo munaasabad ciidamada tababarka loogu xidhayo halkan ka soo saarta xikmad aad u fara badan korneelki meeyey xaamud iyo abwaaniinta hablaha iyo raggaba ee kooxda goodirna aad iyo aad baan u salaamayaa aad iyo aadna waad u mahadsantihiin xaamidow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida aynu la soconno dugsigan mandheera ee lixle waxa uu ka mid yahay meelaha lafdhabarka u ah ciidamadeenna qalabka sida dugsiyada lagu tababaro ciidamadeenna kala duwan ee biliiska iyo militariga asluubta ciidanka immigrationka ilaalada xeebaha ayuu dugsigani ka mid yahay dugsiyada qadiimka ahee dalkan ka soo jirayna wuu yahay ilaa iyo mustacmaradii ingiriiska waxaa la dhisay 1953 waxaynu u baahannahay markaa ujeeddada aynu ka leenahay maxay tahay ciidankaynu ka tababarayno maxaynu ujeeddadaynu ka leenahay waa maxay meesha aynu u soconnayo halkaaynu higsanaynaa maxay tahay waxaa loo baahanya markaa had iyo jeer inay lagama maarmaan tahay dadka ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan ka tirsan inay si fiican ula socdaan somalilan halkay higsanaysaa somalilan maxay doonaysaa waxaynu doonaynaa inaynu noqonno dal degan nabadgelyo ah adduunyadoo dhammi inagu majaarato nabadgelyada inaynu sallaan ka dhiganno aqoonsiga aynu adduunyada ka doonayno meesha quraynu u maraynaa waa nabadgelyada dariiqa quraynu u maraynaa waa nabadgelyada waad la socoteen ayaantii dhaweyto doorashadii bisha 31 dalka ka dhacday ciidankii ilaalinayay inaa ka mid ahaydeen oo ciidamada qalabka sida ay aad iyo aad u mahadsan yihiin tiro 11 kun ku dhowba ayaa ilaalinaysay goobihii maxaanku dhahdaayey codbixinta dadkii inoo yimi waxay aad iyo aad ula yaabeen sifaha dimuqraadiyadda ah iyo deganaanshaha iyo sistamka loo sameeyey doorashada iyo sida aynu nabadgelyadii doorashada u ilaalinay waan ugu mahadnaqayaa ciidamada qalabka sidoo dhammaantood way ka wada qayb galeen hadday yihiin biliiska hadday yihiin militariga hadday yihiin asluubta hadday yihiin immigrationka hadday yihiin ilaalada xeebaha waana sidii uu taliyuhu u sheegaye ciidamadu haddaanay iskaashanin oo iskaashigooda isku jecleen waxba mid gunahi waxba ma qabto waxaynu doonaynaa nabadgelyo darro fara badan iyo dhibaato fara badan ayaa ka abuuran mandaqadan aynu ku noolahay xamar iyo soomaaliya waxa ka socda waynu aragnay mucaawinada iyagaa laynooga badan yahay adduunyadu iyagay wax siisaa ciidamadooda iyagay wax siiyaan kharashka kaalmada caalamka oo dhan caalamka yurub maraykan caalamka carabta siday u dhan yihiin waxaa la maalgeliyaa soomaaliya waxaynu ka warhaynaa maalinba maalinta ka dambaysa sanadba sanadka ka dambeeya in ay kordhayaan nabadgelyo darrada dilka xasuuqa beelaha istilaya qarxinta iyo waxyaalaha mukhadaraadka tuugada waxaanoo dhammi inay kordhayaan maxaynu ku kala duwannahay waxaynu ku kala duwannahay amniga ilaalintiisa qaran kasta hadduu xoog kasta leeyahay iyo hadduu dhaqaalo kasta leeyahay haddii aanu lahayn amni sugan haddii aanu lahayn sharci la hirgelinayo haddii aanu lahayn nidaam dowladeed oo toosan waxba ma hirgasho ciidankeenna biliiska waxaynu doonaynaa in ay dadka ka ilaaliyaan ammaan darrada inay dalka ka ilaaliyaan dembiyada dadka waxbaa la barayaa waynu ognahayoo dhalinyarada bulshadeenu maanta dhalinyaro ay u badan tahay waxaynu ognahay inay maxaanku dhahdaye arrimo fara badan ay dhalinyaradu
oo aan iyaga u wanaagsanayn baa jira mukhaadaraadku yuu laynayaa nin dhalinyar buu dilaya ninkii berrinta dalkan u soo bixi lahaa buu dilaya ninkii berrinta caqliga iyo cilmiga u noqon lahaa buu dilaya waxaynu doonaynaa inaynu kuwa dadka ka qabanno dembiga dadka waa laga ilaaliyaa biliiska waxaan kula dardaarmayaa oo lagama maarmaana shuruucdii iyo sharcigii laydin baray in aad ku isticmaashaan hawla maalmeedka idiin soo socda iyo meelaha laydin geynayo waa laba waxaa la rabaa inaad wax kororsataan dhallinyaraad tihiin waxaa la rabaa inaad wax barataan luqadaha baranaysaan ta soomaaliga sida loo qoraa baranaysaan luqadaha carabida iyo ingiriisiga ee aynu biniaadmiga kale kula shaqaynaa baranaysaan cilmiyada kalaa baranaysaan waxaa la yidhaahdaa sanadkii hore wuxuu kaaga dhammaaday sanadkanina yaanu kaaga dhammaanin waxbaa baranaysaan balwadda sidii taliyuhu u sheegayey aad iyo aad baan idinkuma ammaanayaa inaanay ragga halkan fadhiya aanay balwad lahayn laakiin waxay u baahan tahay inaydaan iminka markaa noqotaanna iminka dugsigaa idin ilaalinayey balwadda iminka waa laydinka ilaalinayey xeradan xidhan baa ku jirteen berrinta xerada xidhan kuma jiraysaan balwaddii suuqaad tegaysaan yaa shuqul fara badan baa idinka horeeya macallimiin fara badan baa idinka horeysa hablihii lahaa maxaanku idhahdaye bilayskaanu doonaynaayo waanu jecelno waanu imanaynaa baa idinka horeeya arrimo fara badan baa idinka horeeya arrimaha waxaa la rabaa inta noloshaada anfacdee dhowrsoon oo qura inaad qaadato balwaddu way ku dilaysaa shaqadaadana way dilaysaa naftaadana way dilaysaa waxaan doonaynaa dalka inaad ka shaqaysaan biliiska inaad u shaqaysaan dardaaran bay ahayd waxyaalaha ugu fara badan ee meesha aynu doonayno inaynu ciidankeenna iyo bulshadeenna kala dagaalanaa waa qabiilka miyaynu meel la ku haynaa janno qolo quriha ay leedahay oo qabyaaladeed oo dadka inta kalena cadaab ku jirto qoladaasina ay janno qabiil la yidhaahda leedahay miyaa la hayaa qabyaaladdu waa cadaab waa dadkay la hadha dadka ku isticmaalaana waa dadka maxaanku idhaahdaa ayay nolosha ka dhacay ee aan naftooda ku kalsoonayn ee naftiisa meel marin karin ayaa hadduu siyaasi yahayna isticmaala hadduu maalqabeen yahayna isticmaala hadduu qof caadiya yahayna isticmaala waa macallimiinta inaga horeysa idinka horeysa caaqilkii ay fanaanintu sheegaya uu ka mid yahay ee ku odhanaya waa reer hebel ninka keeni iminka soo daa waa reer hebel wuxuu u baahaya ninka xun in laga qabto soo maaha qofka xun ee dembiilaha ah ee maalin walba magta soo hoynaya ee maalin walba gacanku dhiiglaha ah ee maalin walba wax kufsanaya ee reeraha isku dilaya kaasaa biliis u tihiinoo aynu dowlad u nahoo la rabaa in dadka laga qabto aad iyo aad baan u ammaanayaa sida xaqiiqada ah saaka markaad barowada marayseenna waan arkayaa weligii baan soo dhex joogay ciidan barowo maraya ciidan aad iyo aad u wanaagsan tababarkiisu ka muuqdo waxbarashadii iyo tamartii iyo aqoontii macallimiintu ay ka muuqato ayaa ahaydeen allah idiin siyaadiyo